Guddoomiyaha Jaaliyadda Somalilan ee magacooda loo soo gaabiyo SSUK Mudane Nuur Xuseen Xaaji Xasan ayaa warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay magaalada London waxa uuna ka tacsiyeeyay guud ahaan dadkii reer Somalilan ee u geeriyooday xanuunka COVID-19. Wuxuu sidoo kale Rabbi subxaanahu wa tacaala u weydiiyey inuu caafimaad taam ah siiyo kuwa la ildaran, isagoo jaaliyadaha reer Somalilan guud ahaan caalamka iyo waddankani Britain uga digay xanuunka COVID-19 saameynta uu leeyahay. Waxaana ka mid ah hadaladiisii: shirkan jaraa'id aan halkan fadhiyay maanta waxaan u qabtay 2-3 qodob. Qodobka koowaad ee ugu horeeya waxa weeye inaan ka tacsiyeeyo dadyogeena reer Somaliland, dadyogii ugu badnaa sanadkan ay nagaga baxa xanuunka la yiraahdo COVID-19. dadkaas oo isugu jira halyeeyadeennii, siimaanadeennii, caruurteennii, dumarkeennii iyo dhalinyaradeenii. xanuunkaas aad moodo inuu aad iyo aad iminka waddankan aynu ku noolnahay saameyn xoog uu ku leeyahay. waxaan doonayaa marka hore in Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaan intii naga geeriyootay uu jannatul firdaws al-a'la u geeyo. marka labaadna waxaan doonayaa in Allaale inta u jiifta xanuunkaasi in Ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad degdeg ah ka siiyo oo dhaqso ay uga kacaan. walaalayaal, waxaan u baahannahay xanuunkan COVID-19 la yiraahdo ee waddankan aynu degannahay ku dhacay saameyn xoog leh ayuu waddankii u geystay. iskuuladii waa la xiray, shaqooyinkii waa la xiray, dhammaan waddankii oo dhan baa istaagay. taas waxay kuna tusinaysaa walaal culayska uu leeyahay. markaynu aragno dhimashadu maalinba maalinta ka dambaysa way sii kordhaysaa. dad 100,000 in ka badan ayaa ku dhimatay xanuunkan maanta. innagu waxaanu ku jirnaa marka laynoo qiyaaso dadka waddankan degan community-da ugu yaryar. haddana waxaanu ku jirnaa dadka tirada badani ay kaga dhimatay. waa maxay sababtaynu u dhimanaynaa? waxyaalaha ugu waaweyn walaalayaal ee fariinteeda caawa ku socota waxa weeye war xanuunkani waa xanuun dilaaya. waa xanuun aan cidnaba dhaafayn. qof yarna ma dhaafayo, qof weynna ma dhaafayo, midaad jeceshahayna ma dhaafayo, midaad necabtayna ma dhaafayo. maanta waxaan ognahay guri kasta oo aynu galno ama qof baa ka buka ama qof baa ka dhintay. marka waxaan u baahannahay walaalo fariinteenna ugu adag caawa ama maanta halkan aan ku sheegaya waxa weeye war waa inaynu u hoggaansanaanaa oo aynu raacnaa wadooyinka caafimaadka, go'aanada shuruucda caafimaadka waddankan. waa inaynu hoggaansanaanaa, waa inaynu joojinaa isu imaatinka, is ururka, isbooqashada iyo wada fadhiisiga si aynu at least ugu yaraan inteena badan uga nabad gasho xanuunkani. waxaad moodaa innaga inaynaan weli dhegaheennu aanay u soo jihanin inaynu u hoggaansanaano shuruucda caafimaadka waddankan. waxaad aragtay inaynu weli isu tegayno, isbooqanayno, ishagaraynayno, wada fadhiisanayno 2 iyo 3 iyo 4 inagoo aan xidhnayn mask aan meelaha wada fadhinayo. walaalayaal, haddaynu taa kusii jirno waxaynu noqon doonaa dadyo halkani in yarun ay ka badbaado xanuunkaas. walaalayaal, waxaan idin leeyahay dhammaantiin aynu gacmaha isqabsanno, aynu isku waaninno inaynu ilaahbaa mawdka keena, qof kastaana maalintiisu dhimanaya. laakiin waxaan u baahannahay inaynu isbadbaadinno, qof kastaana qofka kale u gaarsiiyo fariinta aynu sidno ah. dadka inagaga baxay xanuunkan waa dadkii inoogu qiimaha badnaa ee waddankan aynugu nimi. hadday ahaadaan dadyogeena siimaanada ahaa, hadday ahaayaan dadkii wax ku bartay, hadday noqdaan hooyooyinkii caruuraha waddankan aad kagu soo koriyey, hadday noqoto dhallinyaradiiba. waxaan u baahannahay maanta hal wax baynu u baahannahay, waa inaynu dhammaanteen isgaadhsiinaa, waar aynu digtoonaano, waar aynu u hoggaansanaano wadada caafimaadka lagu badbaado. Cabdi Fitaax Ali Sharwac, warbaahinta caalamiga Home Cable, magaalada London.